أبو بكر عمر دائما برشدي وخدميان بوغان أنا وآخري marka xaqiiqatan waa buug aad loogu baahan yahay way Soomaalida waxaan maanta ugu faraxsanahay si aan caadi ahayn inaan ka soo qayb galo daahfurka buugga hooyo buuggan waxaan ku qornay ilinteena waxaan ku qornay xiisaha aan u qabno hooyadeena waxaan ku qornay qalbigayna iyo jacayl ayaan ku qornay waqti waxaan gelinay aad iyo aad u badan aanan gelin buug kale sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa waa hooyo waa wax xasuus badan hooyo waa lama huraan waxaan caawa nasiib u yeeshay buuggii hooyo inaan gacanteeda ku hayo micnaha hooyada ay leedana buugga markaan akhriyey markaan ku warko wax ka maqsuudi lah murugadan qabee hooyo macaan sidaas awgeeda buuggan waxaan ku dadaalnay in aan soo koobno qof walba aqriya inuu u fududaado isla markaasina ku noolaada dareen aad iyo aad u qiimo badan inaan ka soo qayb galo daahfurka buugga ay qalinka u qaateen wiilasheena Cumar iyo Abubakar oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay hooyadu hooyo macaan wax badan ay ka faa'iideysiin insha Allah akhriya qof kasta hooyadeeda nooshahay qof kasta hooyadeeda dhimata faa'iido u yahay markaan ku warko wax ka maqsuudi lah murugadan qabee